Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. Muhammad Ali Bilal, I'm Somali Code. Waxaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago cashar ku saabsan sida taxanaha inoo ahayd Python. Maanta waxaan qaadanaynaa operators marka Python operators ku xogaysan dhowr xabo. marka xabad inaan igu sharxayaan doonaya arithmetic operator oo arithmetic operator da maqashid waxa weeye calaamadihii weeye plus minus multiplication division modulus intii weeye assignment operator baa jira assignment operator waxa weeye sida equal plus or equal minus equal multiplication equal divide equal modulo equal waxa kale jira waxa yiraahdo comparison operator oo isku marka isku barbardhigayso wax calaamada double equal waxa loo yaqaanaa equal tan yani calaamada taajub ka amal iyo equal waxa loo yaqaanaa not equal marka qorayso saas oo qoraysan inshallah examples kan tusaya this waxa la yiraahdaa greater than x greater than y tan less than marka qorayso saas loo qoraa less than greater than or equal baa leedahay less than or equal logical operator baa jira and or not and markaan ku leeyahay labada statement baa la check gareynayaa labada statement ayaa la check gareynayaa marka la check gareynayo waxa weeye haddii x is less than 5 and x is less than 10 haddii aan haysto x ay tahay 5 tan waxay noqonaysaa correct true way noqonaysaa or ama way haddii mid sax tahay mid kale khalad tahay waxay noqonaysaa true so to x is less than 5 or x is less than 4 marka tan saxsan laakiin tan waa khalad haddaan haysano x is equal 5 not haddii result uu yahay false waxay noqonaysaa true haddii ay true tahay waxay noqonaysaa false for example not function la soo qaadanaysaa x is less than 5 it is true yes x is equal 5 is correct x is less than 10 marka tan marka jumlada tan waxay siinaysaa true laakiin natiijadu waxay noqonaysaa false insha Allah haddana xabada tusaya waxaan ku horeynaynaa arithmetic plus minus multiplication division modulus inta waan sameeynaa insha Allah x is equal 5 y is equal 3 z is equal x plus y print marka waxaan gelinaynaa z marka waa inay noo soo baxdo halkaas 8 waa inay noo soo baxdo insha Allah 8 waa inay noo soo baxdo 8 waan haynaa insha Allah haddii aan u bedelno halkaas multiplication haddii aan u bedelno ama si ay u kala horeeyaan minus haddaan u bedelno insha Allah way qaadanaysaa iyadana and the 53 laga jaro waa to correct way marka haddii aan u bedelo multiplication insha Allah 53 lagu dhifto waa 15 yes correct haddii aan u qaato multiplication insha Allah remaining baa ka soo haraya halkaas remainder is waa marka control F5 1.6 is almost what to like modulus wuxuu kaga duwan yahay division ka halka waxa ku arkaa 1.666 sama sida xisaabaadka caadiga loo soo qaadan jiray 1.6 markay tahay waxay la mid tahay 2 insha Allah modulus ku soo sameynaya aga modulus marka u bedelno insha Allah 2 ayuu noo soo qaadanaya yes 2 noo soo qaadanaya halkaas waxa weeye arithmetic operators
arithmetic operator markaan ka baxno assignment operator waa maxay? assignment operator waxa way equal plus equal minus equal. marka waxaan ka soo qaadanaynaa hal assignment baan ka soo qaadanaynaa, hal example baan ka soo qaadanaynaa, sorry example. marka halka waxaan leenahay x plus or equal 3. haddii aan dhaho print x waxa ii soo baxaysa 8. waayo 8 igu soo baxaysa insha allah waan ii cadday doonaa natiijada ila fiiri. it's 8. halkee 8 ka timi macna ma garanayo meesha 8 ka timi. halka waxaa ku qodhay x plus 3 see ku timi. waxay ku timi x is equal bay la mid tahay, waxay la mid tahay x intaan haysanaa 5. marka waxaa qoraysaa 5 plus 3 waxay noqonaysaa almost 8 bay noqonaysaa, correct. marka ayadoo minus ka waran minus halka kana minus bay noqonaysaa. haddii aan halka kan 6 ka dhigo ama 9 ka dhigo, halka kan waa inaan 9 ka dhigtid sababtoo ah maashatan waxay la mid tahay adiga oo yiri x minus equal, macni x is equal oo la mid ah way x minus 3 oo la soo qaadanayso calaamadaas adoo x ka isticmaalaya sababtoo ah haddii waxa ii soo baxaya 6 insha Allah. yes it's 6. marka haddii aan u bedelo multiplication 9 halkan waa inaan multiplication ayadan u bedelo. marka waxay noqonaysaa 9 3 lagu dhuftay I think 27 bay ahaa jirtay. yes 27. haddii aan halka kan divide ka dhigo halka kanna divide ka dhigo insha Allah 9 3 loo qaybiyey I think 3 it is 3.0 floating baan galay laakiin 3 sax correct. haddii aan fiirino moduluskii I think 3 bay noqonaysaa 3 only 3 yes 3.0 yes. marka moduluska iyo divide-ka maxay kula qaybsan yihiin? tan moduluska waxa weeye waa remainder, waa tirada soo hadhay ayuu soo qaataa. hadday tahay 1.5 soo qaadiyaa 1 ku soo qaadiyaa, laakiin haddii ay tahay 1.6 2 ka dhigaya. hadda way la fahanteen assignment operator-ka. insha Allah waxaan u gudbaynaa comparison operators. waxa weeye waa loo jeedaa waa equal iyo x equal adigoo u isticmaalaya for example kaas anagoo isticmaalayna x is equal 3 and y is equal 3. print equal way la eg tahay wey. yes way isleeyihiin labada kan. it is true. comparison ka xaggaas kale marka loo fiirinayo waxa weeye true iyo false soo kala baxaya. marka true bay insha Allah noqonaysaa sababta way isla eg yihiin. it is true yes true. marka true na waxa la dhahaa iyo false waa boolean. hadda ka hor casharka hore haddii aad fahmi weydid booleanka iyo floatingka iyo integerska waxyaabay ku kala duwan yihiin lecture-ka ugu horeeya insha Allah ina soo qaadid ayaan kugu la talin lahaa. kadibna halka kan aad timaadid kadib aad oo fahansan ayaad imaanaysaa. not equal haddii aan ka dhigo it is false because not equal calaamadaas loo qoraa isma la eka wey laakiin way isla egyihiin 3 ga watan. marka waa false insha Allah. yes false way. and greater than or less than markaad tiraahdo x kama yaraa karto 3 because of way isla egyihiin. marka waa false iyadana. yes false. haddii aan greater than fiirino is
it is false أيضا إلى كم وين منا ويسليهم it's false لكن هدي أهل كان 6 كده it is true yes why ويكون تهي y ويكون تهي x it's true false like minute yes x is greater than y no marka waxay noqonaysaa x is less than y because y waxay wadataa 6 marka way ka yar tahay x way ka yar tahay y that's correct logic yes sorry hada kan waa comparison operator is equal x is less than or equal y هناخد دونتا إن شاء الله it's true yes x وكير تهاي أما والإك تهاي y it's true لكن هدي أنا أقول x وكون تهاي أما والإك تهاي y false yes that is comparison logic marka all one ku fiirinay insha Allah adigu waxa sameeysaa practical badan ku sameey kala duud casharada ayaga kala duudaysa insha Allah marka waxa u gudbeynaa comparison logical operator waa and iyo or iyo not marka and iyo or and labadoodu waa inay hadii labadoodu sax yihiin statement wuxuu noqonayaa true luqada inkaas inay la fahmaysaa ma filaya laakiin or waxay u celinaysaa true hadii mid ay ka tahay statementiga ee true hadii mid ay tahay sax tan kale oo khalad yahay insha Allah wuxuu noqonaysaa true laakiin not labadoodu hadii uu correct yahay waxay noqonaysaa false hadii kale waxay noqonaysaa true marka waxaan fiirinaynaa insha Allah hada kan logical operators and x ayuu saasa insha Allah waxaan noo soo qaadaa example ka kan hadii aan soo qaadno andano x is 5 y uma baahna marka kan x baan jeekreenaa hadeer waxaan ku fiirinaynaa tan aan baan ku fiirinaynaa aan or hadii aan comment idin ku tuso waxa weeye saddex ba weeye waa aan or iyo not bay qaadataa marka print x is less than 5 and x is less than 10 it is true yes what true because of x were clear tahay 5 so the x paper be like tahay and x is less than 10 yes tom were clear tahay x it's false no yes and x is less than 5 so the x were equal well x tahay 5 kama yara صح لكن هدي أقدر راعيه equal إن شاء الله وإحنا نغنيسها true yes sorry وان خلطي الكهورة لكن هدي أنا هل كان هو greater than or equal false true so تاويل إك تاي false so تاويل إك تاي equal بيوكو لكن هدي أنصاره صوت جملة وخلطن تهاي print x greater than 5 and x is less than is logical operator ka waxyaabaha shooye way ka weyn tahay 5 baan iri x way ka yartahay marka mid baa khaldan marka waxay noqonaysaa false way noqonaysaa because and waa inay labadoodu sax yihiin and waa inay labadoodu yihiin same waa inay labadoodu same yihiin oo sax yihiin marka hadii aan dho equal hadii aan dho x waxay la eg tahay equal waxay ka tahay it is true I think it is true
yes true marka or haddii halkan ka dhigno or waxay noqonaysaa greater than haddii dhahno halkan waxay noqonaysaa true because of or waa midkii hadduu sax yahay wey mid haddii sax ka tahay x 5 la eg tahay laakiin x waxay ka weyn tahay 10 it is true waxa la jeegareenayo waxa weeye hal xabo or conditionkaas hal xabaa laga jeegareynaya laakiin haddii aan dhaho ka waran not equal 5 it is false because of labadu waa khalad laakiin haddii aad dhahdid ka waran halka kan less than sababtoo tan way ka yartahay x because 5 way x tanna waa weyn tahay marka waa true way it is true yes conditionka hal xaba ayaa laga jeegin kareenayaa meeshii laga jeegin kareen lahaa labadoodaba meesha aan labadooda laga jeegin kareenayo orta hal xaba ayaa laga sababtoo waxay haddii conditionku saan noqon waayo or ama usaa yahay i fiiri marka halkan haddana wax ku bedelaynaa not and not halka ku bedeli mayno not condition ka not soo qaado inshallah saan ayay noqonaysaa yes not x not function kaas wuxuu isticmaalayaa waxa weeye haddii uu labadaas ay sax noqoto false way noqonaysaa because waxa weeye opposite weeye and the opposite tahay mid haddii ay sax ka tahay labadaas waxay ku tahay opposite and iyo or because aan waxay yahay labadoodu waa inay isku mid yihiin oo x leeyihiin ama ka yihiin waa inay conditionka x la mid noqdaan or mid baa la eegayay laakiin not waa opposite labadoodaas haddeer x is less than 5 and x is less than 10 5 way la eg tahay halka kan laakiin 5 halka kan x way ka yartahay 5 baa la yidhi no tan waxa weeye waa wrong way because of x way la eg tahay 5 and x is less than 10 marka waxay noqonaysaa insha Allah saan filayo false true way noqonaysaa yes true way noqonaysaa sababta ku noqoto waxay tahay waa cagsi not ka lagu sheegayo waa cagsi haddii aan halkaan noo ka waran 2 sorry haddii aan halkaas dhaho x is equal 5 waa sax way la eg tahay and x is less than 10 waa sax way ka yar tahay waa false jawaabta saxda ah not waxay keenaysaa false ila fahantaa filaya sababtoo ah waa cagsi not function waxay qabataa and iyo or opposite keeda weeye haddii midkii haddii haddaan dhaho true x is not equal 5 and x is greater than 10 it's true way soo saaraysaa true yes sababta labada waa khalad not function waxay qaadanaysaa marka true way siinaysaa insha Allah waan dhameynay logical operator kana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي كفهمتي at least one starter please لو ذاك أصحاب هذا share قراي comment كبحي like سي please subscribe نوقع السنة يا سي شرف فانيد أيان هذا السنة يا please لنا وذاك أصحاب هذا هدي أتكيس جنال كذا محمد بلال أم الصومالي كود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته